horta ayaamahan waa aragteen barbagandada meelaha ka socda caawa xagga gadaasheeda waa ikraan tahliil faarax waa walaasheeda gabadhan waa noosha ikraan hooyadan ma dhalin ikraan hooyadeed lacagay qaadan xamdi tahliil faarax oo sheegtay inay tahay walaasha ikraan tahliil aqaarta hawada nagala xiriirta ay saala socoteenba barnaamijkeena meesha uu marayay kiiskii ikraan tahliil halka uu marayay inay nooshahay inay dhimatay in shabeellooyinka laga helay in la guursaday inay uur leedahay barnaamijyo fara badan ehelkeeda oo hadlay ayagana xogo badan ka bixiyey waxyaabo badan iska soo daba dhacay marka waxaa ila falanqeyn doona barnaamijka saaxiibka Cukaash waxaan rabaa su'aalo fara badan inaan ka weydiiyo Cukaash barnaamijkan soo wada laabtay oo mar walba mar ka dambe soo noqonayo xagoo ikraan tahliil kiiskeeda ku dambeeya say wax yihiin Cukaash xagee wax ka qaldan yihiin gooni ma kala waa maasan tahay haddii aan ku bilowno ikraan tahliil faarax arrinteeda mataqaanaa wajiyo cusub oo hor leh iyo mataqaanaa yeelanaysa waxaa soo baxay dhowaan gabadhaas inay nooshahay familka ama ehelka gabadha oo hadlay waxa ay sheegeen gabadhooda marka horeba inay tuhunsanaayeen inay nooshahay laakiin aysan haynin gabadhooda geeri iyo nolol midna aysan ku hayn qabrigeeda aysan arag meel ay ku nooshahay aysan ogeyn laakiin hadda ay doonayaan ninka la yiraahdo muxuu ahaa qarandoon iyo mataqaanaa iyo ninka kale asama mataqaanaa gurmad qaran baa ka wadaa iyo difaaca qaran labaduba ay sheegeen gabadhaasi in ayaga meesha ay joogaan hilaan ay kasoo jeedaan in gabadhaasi ay ku arkeen ayna joogto cadaymihii ay hayaan markii filinkaasi ay soo saareen waxaa soo baxay in gabadha ehelkeedii inay hadleen ayna yidhaahdeen haddiiba arrintaasi ay jirto marka horan annaga tuhunsanayaal aan ahayn waxaan doonaynaa gabadha annaga in aan helno geeri iyo nolol intaba waxayna ka dalbanayaan labadaas nin ee arrinta mataqaanaa marka hore soo hintisay ama baraha bulshada keenay inay keenaan cadeymaha ku saabsan gabadhaasi sidii lagu heli lahaa waxyaabaha kaloo cajiibka waxaa weeye dad badan oo gabadh aan la dhalanin aan waxba u ahayn qaraabo ahayn xataa isgaranaynin inay kasoo hadlaan oo ay leeyihiin ikraan annaga nala dhalatay dadka qaarna ay leeyihiin qaali maxamuud guhaad gabadhan maba dhalinba taana mataqaanaa dood kale ayadana iyo furtay laakiin muhiimaddu guud baa waxay tahay in gabadhaasi sidii nimankaasi ay sheegeen inay nooshahay laakiin ehelka gabadha waxay annaga si walba ay noqotaba waxaan ka rabnaa geeri iyo nolol miday noqotaba dowladdii uu hogaaminayay maxamed cabdullaahi farmaajo waa villada fahad iyo farmaajo oo xilligaasi meesha wada xukumayay in gabadha annaga ay meel noogu sheegaan maadaama amniga dalka iyaga xilligaasi ay xukumayeen okay Cukaash waa maasan tahay hadda maxamed cabdullaahi farmaajo muqdisho ku sugan yahay Fahad Yaasin dalka uu ka baxay haddii baaq loo diro iyo haddii kale ma yeelayo asagoo magaalada muqdisho joogo ayuu baaq iyo wax walba loo diro oo diiday marka ma kula tahay Fahad Yaasin inuu arrintaas ka jawaabayo maadaama uu ku eedeeyay Mahad Salaad iyo Rooble iyo groupkiisa inay gabadhaas ay dileen ma kula tahay inuu haddana soo jawaabayo ama dhihi karo gabadhu waa nooshahay maya horta suurtagal ma ahana waxay ku noqonaynin horta arrinta gabadhan siyaasad baa mataqaanaa aysan ka marnayn marka hore iyo haddaba marka hore waa la siyaasaday oo lagu orkacsaday doorasha lagu galay haddana dowladda xasan oo iyada lafteeda marka hore doorashada kusoo gashay gabadhan iyo haddana waxqabadkeedii iyo ayada lagu duminaya saas daraaddeed ikraan marna cadaalad ma heli karto hadday nooshahay hadday dhimato labadu midna ma helayso waxayna u heleynin waddanka qareeno sax ah ma laha oo ma laha mataqaanaa wax hogaaminayo maxaakiim mataqaanaa maxkamada madaxa bannaan ma lahan saas daraaddeed markay gabadhan suurtagal ma noqon karto inay hesho oo ay tiraahdo Fahad iyo wixigii Fahad wuxuu sheegay in ra-iisul wasaare Rooble alcadaala iyo Mahad Salaad Mahad Karatay inay ka dambeeyeen gabadhan shirqoolkeeda iyadoo la og yahay ehelkii gabadha waxaa la rabay marka arrintii loo sheego in labadaas dhinacba ay ka raasaan gabadha laakiin hooyadii markii way soo fadhiisatay sidii dad social media oo annagoo kale ah intay usoo fadhiisatay iyo waxay tihi fiiri Fahad wuxuu leeyahay gabadheeda saan ka rabaa iyo wixii la mid suurtagal maaha ragga ayaga lafta waa tuhunsanayaal waxbaa lagu tuhmay qayb bay ka yihiin kiiska marka waxaa la rabaa in gabadhan kiiskeeda maxkamad caalami ah loo gudbiyo sida hooyada ay horey u sheegtay ay tiri aniga mataqaanay cadaymihii wixii waan haystaa waxaana u gudbiyey ICJ iyadana mataqaanaa ka war sugayna Fahadna ma imaanayo muqdisho inta mataqaanaa xasan uu joogo farmaajada dee ninka dambi geystay isaga mataqaanaa maba ahano mise ma xukumaynin oo mataqaanaa korbu madaxweyne ka ahaa laakiin hoos dadka xukumayay waxay ahaayeen ninka la yiraahdo Fahad Kulamajiis iyo ninka hadda mataqaanaa ah asna xildhibaanka ah Yaasin Faray inkastoo xataa corona asna uu xildhibaan yahay haba ahaataba intaba haddii ehelka gabadha iyagoo isku xiran iyaga xildhibaanadooda ay dhahaan labada dhinac baasha ay hadda ku foororto yaan ka doonanaynaa maxkamaddana waan la aadaynaa Fahad wuxuu haystaa cadaymihii oo dhan oo maxkamadaasi yuu la tegay saan wada ognahayna 2 maalin ka hor sirdoonka dalka Turkiga waxay la wareegeen Fahad Yaasin amnigiisa
meel khaas ah oo u dhow sirdoonkooda yay dejiyeen ciidama ilaa 100 gaarayna waa la siiyey halkaas lagu ilaalinaya wixiisana wuu haystaa marka ma ku soo noqonayo dalka haddii ehelkan ay maxkamadda ICJ u gudbiyeen adduunku isku wada xiran yahay qaab loo xallin karna way leedahay marka iyada cadeymaha meesha waa la geen karaa laakiin intuu faah soo qaata cadeymihiisa ma la imaan kara muqdisho waayo waa la dili waa la khaarijin waa la ogyahay wixii ka dhacay oo Djibouti waan la wada socon dowladda imaaraadka carabta inay dishay isku daysay laakiin ma suurta gelin saas daraadeed muqdisho ma imaanayo ehelka gabadhan waxaa loo baahan yahay in cadaaladda gabadha ay si sax ah ay ku raadiyaan laakiin aysan ku raadinin muxuu ahaa hal dhinac kaliya aysan ku raadinin eedda maha salaad bay dul foorartaa rasaare dul foorartaa maha salaad maanta isaga mataqaanaa nisa haysta cadaymihii uu sheegayay uu soo wadayna ha keeno okay cukaash waxaan kaa rabaa warka Fahad Yaasiin uu ka hadlay waxa aniga waxba iiga baxay markii uu yiri waxaan ka codsanaa saraakiisha nisa oo aniga ila shaqeynaysay inaysan sirta dalka la wadaagin mahad salaad taasoo kale aniga war baa iiga baxay sababta waxaan isleeyahay saraakiisha nisa ee ka shaqeynaysa Fahad Yaasiin xogo badan maadaama ay og yihiin inuu diidan yahay inay mahad salaad la wadaagaan mahad salaadna oo xogo badan saas ku helo hadhowna sirta oo banaanka soo dhigo oo baasho ay Fahad ku soo laabato taas ma la is oran karmiya horta aan ku sheego Fahad intii uu xukumay nisa wuxuu ku xukumay lacag xaqadanka laga hadlo lacag waalan oo qadar ay soo siisay ninkan uu haystay qof kasta oo la shaqeynayna malaayiin doolar baa la siinayay waan la ogaa lacag fara badan buu siinayay mahad salaad haddii mataqaanaa lagu tuhmay imaaraadka isagan lacagta hala imaado nimanka sirtooda mataqaanaa banaanka keenayaan way waxay u naxayaan ma laha muqdisho annaga waan ognahay waxaa xildhibaan noqo madaxweyne noqo askari noqo dhammaan waxaa lagu wada shaqeynayaa shilinka iyo doolarkaas shaqeynayo haddii lacagtaada aad bixiso xog waa helaysaa muhim oo dhammaystiran shaab baa ku siin waxaa ku siinaya kuwa nisa waxaa ku siinaya meeshaad oga baahta dhammaan waa ka helaysaa laakiin haddii mataqaanaa aad noqoto qof gacan adag oo waxba aan bixinaynin hadalka si uu sheegay muxuu ahaa ninka la yidhaha Fahad way noqon kartaa wax mataqaanaa oo ku tusinaya cadayma ah in uu diidan yahay waayo qofka markii uu shirqool uu sameynayo keligii ma fulin karo wuxuu u baahan yahay la taliyaal marka ayada arrintaa jaangooyo kadib waxaa loo baahan yahay qorshihii markii la fulin lahaa dadkii fulin lahaa yaa loo baahan yahay markii la fuliyo meeshii lagu fuliyay dadkii fulinayay iyagana mataqaanaa waa wada dheer wey silsilada marka silsiladaas oo dhan Fahad ma soo xiri karo marka silsiladaas si u soo xirmin waa in mahad salaad uu ka faa'iideysto haddii asaga uusan kiiskan waxba ku lahayn in uu mataqaanaa lacag ku furdaamiyo kiiskana mataqaanaa uu helo cadamiisa dhammaystiran cukaash waa mahadsan tahay hadda mahad salaad maanta wararka naga soo gaarayo saraakiisha nisa ee ka hoos shaqeynaysa Fahad Yaasiin ayuu xogo badan ka helay macluumaad fara badan ayuu diyaarinayaa mar ka dambeysana xogo zaid ayuu helaya laleeyahay qaabka ku galay iyo qaabka ku helay ma garan karno laakiin waxaa laleeyahay xogo badan ayuu hayaa mar dhowna waxaa laga yaabaa inuu nisa banaanka soo dhigto xogta gabadhaas oo dhammaystiran marka ayada nafteeda maxaa is leedahay waxaan is leeyahay haddii arrintaasi uu sameeyo oo cadeymaheeda la imaado maxkamadda u gudbiyo gabadhan feelkeeda si Yaasiin Fari hore uu noogu sheegay waxay taallaa maxkamadda ciidamada qalabka sida maadaama gabadha sarkaalad ciidan ay ahayd waxaa kaloo ay taallaa maxkamadda mataqaanaa gobolka Banaadir dhammaan waxaa la rabaa marka ayada cadeymihii in intii la keeno kiiskaas hor loo dhaqaajiyo yaa loo baahan yahay mahad salaadna haddii arrintaas uu sameeyo wuu iska beriyeelayaa dadka Soomaaliyeed mataqaanaa kalsooni uu ka helaya haddii wax sax ah uu keeno gabadhaasina cadaaladdeeda mataqaanaa nolol iyo geerta la sheego marka hore la helo taas haddii ay dhacdo kalsooni fara badan ayuu mataqaanaa ayuu heli doonaa hor buu u socon doonaa laakiin haddii ay noqoto mataqaanaa Fahad iska dhici isagana taasi ma socon karto okay Yaasiin Fari ninka la yiraahdo iyo ninka la yiraahdo ninkan la yiraahdo maxaa la dhahaa Fahad Yaasiin way kala hadleen marka maadaama ay kala hadleen oo Yaasiin Fari asaga wuxuu yiri gabadhaas xogteeda waxaa haysa nisa ka tirsaneed ninkan la yiraahdo Fahad Yaasiin wuxuu yiri nisa gabadha ma ka tirsanayn marka taas nafteeda soo shaki ma dhalin karo maadaama midna uu leeyahay nisa ku jirtay midna uu leeyahay nisa noogama tirsanayn anaga noo mid aan gashanayn horta inaad daawanaysa ma ogi Yaasiin Fari wareysigiisa xogaa khalkhal iyo cabsi baa ka muuqatay nin aad aan isku kalsoonayn iyo mataqaanaa ayuu ahaa sida Fahad oo kale mataqaanaa ma ahayn marka saas daraadeed waxaa dhici karta Fahad gabadhan aqoon buu lahaa oo reerkooda iyo familkooda kulli uu garanayay saas daraadeed nisa way ka tirsanayd laakiin wuu inkirayay wuxuu u inkirayayna kiiskan cadeymaha u haystay iyo baalkigi si aysan isaga usoo noqonin waa in marka hore uu yidhaahdaba maba ka tirsaneen ma ka tirsan marka laleeyahay dhikaarkeeda xilligii la shaqaalayay mishaarkii qaadanaysay dowladda dhammaan waa la tiri leenkaa markii la tiro hadhow wax xog ah oo ku saabsan in nisa ka shaqeynaysay ma soo baxayo haddii uusan soo bixin meesha ka soo bixin waxaa cad marka ayada gabadhan ee banaanka joogtay shaqadoonna ay ahayd marka hadalkaas marka cadeymahaasi oo ku tusinayo mataqaanaa dhammaan in lasoo baabi'iyeyna idan mataqaanaa waxay tahay cadeymo hor leh oo ku tusinayo in kiiskan gabadhan
horey gadaal la baabi'iyey lagu siyaasadeeyey oo mataqana kiisas fara badan ay mareen haddii mataqana maanta qofka la dilay uu nin ahaan lahaa waxaan mataqana kama dhic lahayn laakiin dumar weeye dumarna markii la dilayo kufsi baa ka horeeyo jirdil baa ka horeeya dhibaato badan mataqana qofka yuu marayaa saas daraadeed qofkii xataa dhalayna ma yeelayaan iyo dadkii kasoo jeeday marka kiiskan wejiyo cusub oo fara badan yuu yeelanaya waxa marin haawiyo kow wax ka ah xildhibaankeeda amin jesow isaga mataqana labada jeer hadlay marna mataqana nisa yidhi waa waxba ay tusaan cadaymo way ku saxan yihiin marna ka hor yimid marka adeerna wuu yahay gabdhow oo xataa ilma adeer asaga ninka la yihahdo muxuu ahaa tahliil farax waa sax okay cukaash waa mahadsan tahay barnaamijyadana iyo barnaamijyadana dambe intaan ku kulmi doono waad ku mahadsantihiin la socodkeena barnaamijka youtube-keena subscribe-ta iyo laagta iyo shaartana la wadaaga tan iyo kulantadeena dambe oo xiise leh sidaas iyo nabadgelyo